xanuunkan wuxuu ku dhacaa caruurta ay daadooda ka yar tahay 15 sano haddii aanan ilmaha xilli hore laga daweyn ama xilli hore lala tacaalinna waxay sababi kartaa inay markaasi ilmaha ay gaarsiiso heer dhimasho ama in dhaawac maskaxeed uu soo gaaro markaasi ilmaha. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Maalin wanaagsan meel kasta aad joogtaan. Insha Allah maanta waxaynu ka hadli doonaa xanuunka qoorgooyaha caruurta ama qoorgooye hadba sida uu taqaano Soomaalida afka qalaadna lagu dhaho pediatric meningitis. Xanuunka qoorgooyaha caruurta waa xanuun ku dhaca caruurta ay daadooda ka yar tahay 15 sano jir, khatarna in badan u keeni kara caruurta haddii aan xilli hore laga daweynin oo markaasi gaarsiin kara ilaa heer dhimasho ama dhaawac maskaxeed haddii aan xilli hore markaasi lala tacaalin. Qoorgooyaha waxaa keena caabuq ay sababto bacteria ama virus taasoo ay barariso xuubka difaaca ee daboola maskaxda iyo weliba xangulada lafdhabarta ee loo yaqaano spinal cord. Waxaa kaloo keeni kara qoorgooyaha dhaawac markaasi soo gaara ama ku dhaca xangulada, kansar markaasi ku dhaca ee xangulada iyo weliba sidoo kale daroogooyinka daawooyinka qaar ay ka sameysan iyo weliba noocyo kale caabuqa markaasi keena. Haddaba sidee uu ilmaha ku qaadi karaa xanuunkan qoorgooyaha? Ilmaha wuxuu ku qaadi karaa ama waxa lagu kala qaadaa xanuunkan xagga neefsashada ama waxa loo yaqaan airborne. Haddaba calaamadaha uu leeyahay ilmaha markaasi qoorgooyaha lagu arko waxaa kamid ah ama badanaa waalidku waxay ku arkaan ilmaha marka hore ama maalmaha hore in markaasi ilmaha uu yeesho calaamado sida duray ama hargab oo kala ah, sida in ilmaha lagu arko qandho ama xumad zaid ah, qoorta oo adkaata, madax xanuun aad u daran oo midkii hore ka duwan, madax xanuunka caadiga ka duwan, laba ama matag, ilmaha oo lagu arko jahwareer ama inuu wareer yar ku jiro, qalal markaasi ilmaha aan horey loogu arki jirin, iyo iftiinka oo markaasi ilmaha dhibaya ama uu ka eed sheeganayo xagga iftiinka, cunada ama abateedka ilmaha oo markaasi hoos u dhaca ama cunto xumi markaasi ilmihii iyo quudkii uu ka go'o, iyo weliba haraad zaid ah. Mararka qaar ilmaha waxaa lagu arkaa finan ka soo baxa maqaarka korkiisa sida gacmaha oo kale, caloosha, dhabarka iyo lugaha. Calaamadaha lagu garto ilmaha marka uu dhasho ilaa uu ka gaarayo bil uu markaasi xanuunkani asiibay ama xanuunkani uu ku dhacay qoorgooyaha caruurta waxaa kamid ah xumad sareysa, oohin badan iyo weliba hurdo xad dhaaf ama xanaaq badan, gariir markaasi jirka markaasi laga arko, iyo weliba ilmaha sidoo kale ka go'a ama aan jaqinba naaska hooyada, iyo qoorta ilmaha oo markaasi adkaata. Badanaa hooyooyinka waxay aad uga sheegtaan ilmaha inuu markaasi uu yeesho calaamado sida qof duray haya camal oo kale oo markaasi xumad marnaba aan yaraaneyn oo xumad aad u fara badan ah, iyo weliba markaasi ilmaha oo lagu arko qoortiisa oo markaasi adkaanaysa. Haddaba haddii ilmahaaga uu ka yar yahay 15 sano jir oo aad ku aragtid calaamadahan xumad aad u daran ama qandho zaid oo aan kala joogsi lahayn iyo qoortiisa oo adkaanaysa, fadlan markaasi xarunta kuugu dhow caafimaadka tag si markaasi loo hubiyo ilmahani xanuunka haya, si haddii qoorgooyo uu hayo xilli hore loola tacaalo oo markaasi xilli hore daawadiisa ku habboon la siiyo. Waxyaalaha ilmaha yar haliska u keeni kara ama waxyaabaha markaasi sababi kara in ilmaha yar uu xanuunkan qaado waxaa kamid ah ilmaha oo aan xilli hore la talaalin ama talaalkii oo aanan loo dhameystirin. Sida aad ognahay talaalka caruurta wuxuu ka difaacaa cudurro badan, sidoo kale wuxuu kor u qaadaa difaaca ilmaha. Haddii ilmaha aan talaalkiisa loo dhameystirin markuu yaraa ama haba yaraatee wax talaal aan la siin, waa sabab keeni karta inuu markaasi u nuglaado inuu xanuunkan qoorgooyaha uu markaasi uu ku dhici karo. Sidoo kale ku noolaanshaha goobaha ay dadku ku fara badan yihiin ama environment ama deegaan markaasi dadku ay ku badan yihiin oo overcrowded ah, sidoo kale difaaca ilmaha oo aad u hooseeya. Dhibaatooyinka ka dhalan kara haddii ilmaha xanuunkani qoorgooyaha aanan xilli hore lala tacaalin ama xilli hore aan la daweynin waxaa kamid ah maqnaanshaha xagga maqalka oo ilmaha oo ku yaraada maqalkii ama wax maqlidii, sidoo kale dhibaato dhanka xasuusta ah oo ilmihii oo xasuustiisa ay ku yaraato. Sidoo kale wuxuu ka dhaxli karaa ilmaha haddii aanan xanuunkan xilli hore laga daweynin ama xilli hore aan lala tacaalin in markaasi ilmihii
uu noqdo ilmo curyaana, dhaawac markaas soo gaara xagga maskaxda, suuxdin iyo weliba keliyaha oo shaqadooda gaba iyo maskaxda oo ay biyo kaga furmaan. Ilmaha qaarna haddii waqti badan oo xanuunka uu hayo wax daawo ama wax daryeel caafimaad uu helin waxaa dhici karta markaas ilaa heer dhimasho inuu sababo. Dhibaatooyinka badanaa waxaa looga hortagi karaa ilmaha oo sida u dhaqsiyaha badan lala xiriiriyo goobaha caafimaadka si uu u helo daryeel caafimaad oo ku habboon, isla markaasna looga gaaro xanuunka intuusan sababin ama uusan gaarin meelo kale. Haddaba sidee looga hortagi karaa xanuunkan qoorgooyaha caruurta? Marka hore ilmaha markuu yar yahay in talaalkiisa loo dhammaystiro oo talaalka si buuxda loo siiyo, aanan laga kala tagin. Gacmaha ilmaha oo markastoo cunto la siinayo laga dhaqo oo markaasi gacmihiisa ay ahaadaan gacmo nadiif ah. Nadaafada guud oo jirka oo ilmaha lagu dadaalo, iyo weliba haddii markaasi oo ilmahaas uu ku nool yahay deegaan ama environment markaasi dadku ay ku badan yihiin, nadaafadiisuna ay markaasi ay yara liidato, in markaasi mar walba ilmaha markuu uu qofacayo oo kale ama markii qof agtiisa uu ku qofaco uu qofkii markaas uusan afkiisa oo uu daboolo oo afkiisa furan uusan qofacin ama uu gacantiisa afka saaro si markaasi uusan u soo gaarin ilmaha. Talada aan siinayo hooyo kasta waxay tahay haddii aad ilmahaagu aad ku aragtid xumad aad u fara badan, jirkiisa oo gariiraya, oohin badan, oohintiisa oo zaa'id ah, cunada oo ka xumaatay, markaasi waxaa kula gudboon inaad la xiriirtid meesha aad joogtid goobta caafimaadka markaas ay kuugu dhow si aad u heshid waqtiga ugu habboon daryeel markaasi ku habboon ilmahaasi xaaladda uu ku sugan yahay. Xanuunkan baaritaankiisa waxaa lagu ogaadaa iyadoo laf dhabarta laga qaado dheecaan, markaasi maskaxda laga fiirinayo calaamadaha lagu garto qoorgooyaha inay jiraan iyo in kale. Baaritaankaasna waxaa loo yaqaanaa cerebrospinal fluid ama CSF. Qof kasta lagama qaadi karo baaritaankaas, waxaa jira xaalado aan la qaadi karin sida haddii qofka cadaadiska maskaxda ay aad u sareyso oo markaasi halis ayay keeni kartaa haddii la isku dayo in markaasi dheecaan laga qaado laf dhabarta. maanta intaas uu ka egyahay, waa filayaa inaad ka faa'iidi doontaan insha Allah. La sii wadaaga asxaabta. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.